السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان قيارتي توبان سلامي عشركن wuxuu ku saabsan yahay casharkeennii 12aad ee Camtasia Studio 8 kaasoo uga hadlayno qaybta editinka videoga ee la dhahayo split inaad videoga jarjar ku samaysid qaladaadka badan ee dadka ka imaadaan oo aad u badan tahay ka mid tahay iyo waxyaabaha ku caawinayo inaad markasta videoga marka split ku samaynaysid aad ka dheeraatid dhibaatana kala kulmin marka aan bilowno sidaan u isticmaaleen split ee Camtasia Studio 8 Welcome to my YouTube channel. Camtasia Studio soo furo kadib portion videoga editing ku samaynaysa ayaa tagaysaa kadibna videogii ayaan soo qaadanaynaa kadib marka videoga soo qaadid dragging ayaa ku samaynaysaa qaybtan ayaa soo dhiganaysaa oo timeline-ka marka waxaa ujeedaa videogii sidan ayuu kugu yaalaa waxaa laga yaabaa markaan calaamadda loogaha kale waxyaabo badan oo badanaa muhiimka kale aan ka hadlayno waxay tahay inta badan aan isticmaalayno in aan soo qaado loogaga okay loogihii waa kusoo darnay kadibna dragging ayaa ku samaysay videoga waxaa rabtaa marka videogii aad samaysay tan labaad cod ayaan noo dhiman inaan codka kusoo darno waxyaabahan ka hadlayno kale ka mid yihiin ayakana in badan markaa videoga jaraysid ee qaladaadka kaa dhicin kan aad u yiri codkan kadibna dhiman codka kor ama hoos meesha artid ayaad dhigi kartaa laakiin kor ayaan dhiganay hoos ayaan gelinaynaa si fiican videoga loo wada arko kanna waa ka yaraynaynaa sidoo size-ka noogu soo yaraado waxyar ayaan kor u qaadaa kadib badanaa videoga waxaa arkaysaa inta badan waxaan rabnaa intaad tiro meeshan waxaa ujeedaa intooga markaad hadlo intaas waa aamusay intaas aamusnaanta aamusay waxaan rabaa inaan jaro sababta waxaa ogaanayna videogii iyo intaas way isla socdaan waxaad ogaanaysaa way isla socdaan markii haddii aad qabatid meeshaas aad dragging ku samaysid waxay la mid tahay saddexdoodaba jar marka haddii kee aad rabtaa inaad jartid badanaana videogii codka way isla socdaan laakiin aniga codkayga way kala duuban yihiin waxaan isticmaalayaa microphone banaanka saas taa markii ogaatid haddii aad rabtid inaad jartid matalan kale ma raba inaan kan jaro waxaad tegaysaa qufulkaas ayaad tegaysaa log ayaad ka dhigaysaa ma jaraayo laakiin markaan ka furo oo dhow cut aan ku sameeyo wuu jaray isla si automatiga ujeedaa wuu isku xiray labadan sababta kan wuxuu isugu xiraa maxay tahay kan wuxuu isugu xitaa waa picture iskuma xiraayo hadda xitaa right click dhaho ujeedaa ma lahan laakiin kan markaan calaamadan labadan saaro right click dhaho ujeedaa undo aan soo dhaho wuu kala furay haddana highlight ka saaro markaan right click aan dhaho ujeedaa calaamadii kuu soo saaray control alt t ay ka qoran tahay wuu isku xiraa sababta isku xirka waxay keenaysaa markasta videoga aragtid inaad gadaal iyo drag u samaysid wuu isla socdaa laakiin inta badan dadka qaladaadka dhaca waxay ka mid tahay waxa laga yaabaa split inta ku sameynaa xagga ku sameynaa waxa laga yaabaa hadhow inuu videoga oo waxyar xagadka galo ama dib uu mar labaad u sameeyo sababta markastoo videoga isku xiran yahay videoda codadka meelihii qaldan ka jirtid waxa laga baahan yahay right click ku dhahdid kadibna isku soo xirtid sidaas videoga splitkana waxaad isticmaali kartaa c ayaad isticmaali kartaa oo loo soo oo ah inaad splitka loo soo gaabiyay haddii aad highlight ka saartid split waa dhigi kartaa ama waxaad dhigi kartaa in aad hadaartid inta aad rabtid inaad jirtid ayaa highlight ka saaraysaa kuwaada rabinna looga ayaa saaraysaa marka calaamadan kan waxay ku sheegaysaa matalan kan loogaha saan u saaran tahay ma rabo in la arko haddii aan ku dhufto ima muuqanayo naana wuu qarsan yahay haddii aad looga saartana maxayna waxay tahay waa ka xir sababtoo inta badan videoga markaad samaynayo waxaa ogaanaysaa videoga markaad samaynaysid inta badan way ku fududahay waxaan u baahan tahay markasta inaad dhegaysatid hadda tusaale markaan kusoo qaado kan aan waxaan highlight saaro aan delete dhaho dib aan soo qaado kadibna loogaa soo geliyo kadibna audio soo geliyo waxaad ogaanaysaa ugu muhiimsan waxay tahay inta aad videoga sameyno waa inaad dhahdo fail save as ayaan leenahay kadibna waxaan ku save gareynaynaa desktopka ujeedaa desktopkan noo soo baxay desktopka ku dhufo ama meesha aad u rabtid inaad ku save garisid ayaad ku dhufsanaysaa kadibna save ayaa leedahay okay ayaa leedahay kadibna markaa soo dhigayna projectka markaasaa u bilaabatidna double click haddaad siisid waa ku laabanaysaa si toos ah ayuu Camtasia Studio kugu soo furmaa inta badan dadka waxaa laga yaabaa videoga markuu dib u sameeyo waxaa arkaysaa videoga wuu xiray hadda matalan videoga wuxuu sameeyay projectiga kadib wuxuu iska yiri cancel u baahnid haddii aan double click siiyo ama projectorkii
projectiga aan diyaariyey waxa haddii uu videoga markaan sameeyo qalad aan ku arko ama hadallo qaldan ama videoga kala dheer yahay waxay noqonaysaa inaad hadda kadib dib usoo sameysid laakiin waa inaad videoga ku save garaysaa projector ahaan si oo hadhow aad ugu laaban karto videogana aad wax ugu bedeli kartid sababta wuxuu kaa caawinaa videoga si sahla inaad ugu laaban kartid videogaaga aad dib editing ugu sameyn kartid ujeedaa dib ayuu kugu soo formay feelashiina sidii aan isku saaray ay u socdaan inta badan markaan intaan badan maxaa ugu talagalani inta badan waxaa ugu talagalay waxay tahay looga isticmaalayo ayaan intaan leeyahay kana waa ka xiraa kaga waxaan ku sameynaa inaan ka jaro intaas kadib intaan hadalka ka maqan ayaan loogaha ugu talagalay sababta waxaan dhahay markaan rabin mawduucii halku dhigi ka hadlay kadib waxaan dhahay aan bilaawno ama aan sharaxno qofba sida uu isticmaalayo kadib loogaha ayaa soo gelinaysa meesha waagi hore inta ayaa la geli jiray laakiin hadda casri inta badan aan u isticmaaleen kadib badanaa markaa isticmaalaysid kana ani inta badan markaan inta la soo geliyay loogaha waa ka jaray inta ayaan keenay kadib loogaha soo geliyay kadib transmission waxyaabaa isticmaalay laakiin inta badan waxyaabaha ugu muhiimsan xitaa mar kasta adi aad sameynaysa videogaaga waa inaad dhahdaa save meel kasta cabaar aad martid waxa hagaajisid waa inaad dhahdaa save laana markaa save dhahdid hadda video kale rabaa inaad sameeyo oo jeeda project ay markaa ku laabto waa ii diyaarsan yahay videogii sababta haddaan dhahdo fail new aan dhaho oo jeeda hadda wax iima yaallo marka video kale rabaa inaan cusub soo duubo fail ayaan leeyahay projectorka ugu dambeeya aan soo furnayaa open ayaan leeyahay kadib videoga ii diyaar waxaan iska masaxa oo keliya codkan iyo videogan ayaan iska masaxa loogaha ma sameynayay sababtoo inta badan hadda aan video markaan sameynayo waxyaabaha ugu isticmaalo kale markaan projectorkayga saxda soo furo adhono kama save garanaysid waxaa ogaanaysaa editka markaad sameynaysid waxyaabaha ugu dhib badan ay ka mid tahay wax laga yaabaa inay kaa qaato saacad wax laga yaabaa inay kaa qaato dhowr saacadood video 5 daqiiqo kooban yahay laakiin videoga waxaad sameynaysaa waxay tahay inuu noqdo qofka daawanayo video uu fahmi karo laakiin waxaa laga yaabaa dadka badan inay iska soo geliyaan videoga la geliya youtube-ka inta badan geli muhiim hadda fiiri videogan waa videoga saxda aan duubo ujeedaa wuxuu ka kooban yahay calaamada timeline ugu koreysa ujeedaa markaan ka xiro ujeedaa ka aragtaan ujeedaa kuma jirto kanna waa backgroundkiisa cad white-ka looga inta badan marka inta badan kuwan ayaan ka bixinaa ayaan leeyahay delete sidaan oo kale delete ayaan leeyahay sababtoo save projectiga sidaas ayuu kugu muhiimsan yahay markasta aad sameynaysid save projectiga haddii xitaa kaa qaldamo undo ay isticmaal inaad undo isticmaaltid marka speleedka inta badan markaad sameynaysid wax kasta speleed ku samaysid waa inaad dhahdaa right click highlight ka saartaa kadib right click dhahdaa kadib isku soo xirtaa videoga saas ayaa lagaaga baahan yahay sababta waxaa muhiim oo kale hadda codkan oo kale iyo waxaan markaa speleed ku samaysid inta badan dadka waxay sameynayaan inay kala dhaqaaqaan hor usoo sheegnay insha Allah bina kariim waxyaabaha waxa laga yaabaa in hadalkeenu ku badiyay laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo si aniga aan u sameeyo iyo ardaydu waxyaabay baahay u qabaan inta badan dadka dhibaato qaladaadkoodana waa iska badan yahay qof aan qalad soo marin malahan kulli muhiimad inaan kala faa'iidno cilmiga markaasna waa sheegay Camtasia Studio isku aaminin waxa laga yaabaa in adigu projector meel fiican ku marayo in uu dhahdo stop ay dhahdo kadibna ka istaago kadibna hada dib hadana u soo bilaado waxay noqonaysaa inaad dhibaato badan martid tan kale waxa sameynaysaa hadda videogan waa jaray intan laakiin hiding ayuu yahay markaan calaamadan jiido fiirso videoga dhameystiran ayaa ii soo baxaya sababta fiirso hadda intaan ma jeedin ilaa bilaaw markaan geeyo fiirso videogii wuu qarsan yahay wajidid markaan bilaaw tagna xitaa fiirso videoga bilaawan ayaa inta ku yaala fiirso halkan laakiin markaa videogii hada split kastaan ku sameeyo macnaha waa markasta hiding badana waxa laga yaabaa in dhaho qofka video inta hore iga maqan yahay videoga la qaadana mid kale soo qaado hadana marka la ku rakmay videoga markaad inta split ku sameysid aad tirtid hadaad delete ku sameysan undo aan soo dhaho soo celiyo sababtoo markasta hiding ayuu ku yahay markaad tirno markasta wuxuu ku yahay hiding hadda markaan codkan oo kale tagtid codkan markaad tagtid inta ayaan ka jaraynaa intaan waxaan leenahay split iska riix kadibna hamar kale ku sii kadibna delete keyboardka taago haddaan dib usoo qaado fiirso codkii ma jarno laakiin wuxuu ka dhigaysa waas adoo tira sidaan oo kale meeshan ka qabatay labada falaal kuu soo baxday kadibna dragging aan ku samaysay oo qirisa iyo la mid tahay jaristi iyo qaristi labada dhinac way la mid tahay laakiin qofka waxa laga yaabaa inuu dhaho codku waa jaray oo mar labaad codkii haddana ku laabto haddana codkii had marna soo qaado oo isku aadimay meesha ka jartay codka tan kale waxaan ka hadlaynaa xitaa videoga
waxa laga yaabaa inuu video aad duubaysa meel kaa maqan yahay intaanoo kale laga yaabaa inuu kaa maqan yahay marka hadal ay kaa qaldan waxaa rabtaa videogii aad duubtay aad hadashay meesha waxaa laga yaabaa inay dhahday mataqaana kasoo bilaabo kale waxaad tiri waa inaad taabataa control bana waa inaad saas taadaa wixii hadalkii waxaa laga inuu kala horeeyo haddii aad isku daydo videogii inaad samaysid meesha ka bixisid way kugu adag tahay laakiin haddii aan rabno videogan intaan inaan ka qaadno image caadiya fail ayaad tegaysaa sidai kugu sahlan ay ka mid tahay aad dhahdid waxaad tegaysaa ku qoran tahay produce and special kadib waxaad leedahay export frame as ayaa leedahay kadibna meesha artid ayaa dooranaysaa kadibna save ayaa leedahay sidaas wuxuu kugu save gareeyey sawirkii wajida inta ayuu ku yaalaa fail ayaa import ayaa dhigi kartaa desktop-ka tegi kartaa sawirkii meesha ku yaalo kadibna waa soo dhabalkasiina ujeedaa meeshii aaratay ayaad ku daraysaa matalan kale intan ayaa ka maqan intii aan dragging kusoo sameynayaa laakiin waxaa arkaysid hadeer markaa aragtid videoga ma dhaqaaqaayo ujeedaa waxa ku jira meeshaan intan waa image caadiyo sawir aan dhaqaaqayn waa la-anna waxay ku anfacaysaa meeshii kaa maqan oo haratid inaan hadalkana saxsan yahay aratid inaad ku bedeshid waa inaad imagekaas qaadataa aad ku aadisaa meesha si qofkana ma dareemayo inta badan dadka qaladaadka sameyn waxaa kamid kale fadlan markaa videoga duubaysiin muuska dhaqaajinaysaan inta badan waa qaladaadka ka badan ka mid tahay kadaan ayaan ku hadli doonaa insha allah bina kariim hadalka ayaan ku badan fadlan haddaa ka faa'iideen la-anna waxay tahay marka qofka uu dadaalo oo video sameeyo oo videogiisa like iyo sharing iyo comment laga bixiyo wuxuu isku dayaa inuu videogiisa la fahmay walaalahood kale ka faa'iideen cilmigana waxay muhiimada tahay macalinka markuu waxbara ardayda uu ka arkay natiijo wanaagsan marka insha allah bina kariim adigana mahadsantihiin waqtigaan ku dheeri karaa lahaada insha allah bina kariim qari caafimaad ayaan idin rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh wajazaakum allahu khayran